waxaa warbaahinta dunida ay si weyn u qaadaadhigaysay sheeko ku cusub dunida oo qof kasta oo maqlay la yaab ku noqotay kadib markii nin u dhashay dalka jabaan uu baahiyey war sheegaya inuu raadinayo haweenay ku wehelisa safar u damacsan yahay inuu ku tago dayaxa haddaba maba xuma inuu damaciisa dayaxa geeye arrinka la yaab kale ayaa noqday in codsigiisaasi ay ka soo jawaabeen kumanaan dumar ah oo iyagu markaasi islahaa waad buuxin kartaana shuruudaha uu ku xidhay nooca qofka uu rabo ninkan oo sidoo kale sannadkii hore sameeyey arrin kale oo isna la yaab noqday dunida ayaa waxaa sheekadiisa inoo hayo aan soo dhoweyn doonaa nuur xasan nuur ninkani waa nin u dhashay dalka jabaan waa nin bilyaneer ah hadda ma ahan cabdixakiin milyaneer waa bilyaneer waa nin ilaahay wax siiyey si kale kuma gartida waa ka waxaana hantidiisa lagu qadaray ku dhowaad 4 bilyan oo dollarka maraykanka marka waa milyan maaha waa bilyan waan gartay waana warbaahinta jabaanna waxay ku tilmaameen inuu yahay ninka ugu hodansan dalka jabaan ninka ugu lacagta badan waa gartay markaa sheekadu sameeyey maxay tahay la yaab kale adduunyada dhan soo jeedata sheekada uu la yimid ninkan waxa ay noqotay sheeko ku cusub dad badan mana ahayn wax la filayay waxa January bilowgeedii uu soo hindisay ama uu ku dhawaaqay inuu u socdo dayax ha ahaatee in uu doonayo gabar safarkiisaas ku wehelisa keligii ma doonayo inuu tago marka shuruuduuna la yimid cabdixakiinow 3 shardiyuu la yimid wuxuu yidhi marka hore waa inay ahaato gabar madax bannaan oo aanan la qabin waa inaysan ka yaraanin da'da 20 sano waa inay doonayso in ay dayaxa u raacdo saddexdaas shardi marka meesha la tegaya maba ahaba wadan iyo dhul iyo meel kale laba tegaya hawada sare la galaya hawada sare marka dee dabcan markuu ninka bilyaneerka lacagta intaa lag haysta isla markaana maxaan ku idhaahdaa dee shuruudahaasi maba cuslaba markaad saa eegto dee ma lasoo dalbaday oo dad badan ma soo dalbadeen cabdixakiin waa su-aal wanaagsan laakiin jawaabta ayaa ah jawaab yaab leh waxaa soo dalbatay ku dhowaad 28,000 oo gabdhood hadda waa 28,000 ma ahan 820 ma ahan 800 ma ahan waa 28,000 oo gabadh ayaa soo dalbatay ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa Twitterka waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka Japan telefishinno badan ayaa waxaa la yiri xayeysiin ka qaat maadaama uu bilyaneer yahay oo maaragtay hawada geliyay yaa u baahan in uu safar hawada ah uu u raacnin bilyaneer waan gartay waynuu geli doonaa bal dumarkaa waxay ka yeelaan bal haddaba haddaan ku weydiiyo horta ninkani muxuu ka shaqeeyaa ninkani waxa uu ku caanbaxay markiisii hore wuxuu ahaa nin artist ah oo fanaan ah oo soo saara albunada heesaha laakiin markii dambe wuxuu ka bilaabay ganacsiga dhinaca internetka online-ka ah dharka sida dharka fashionka ee gabdhaha iyo dumarka isticmaalaan iyo ragaba ee casriga ah marka waatii hadda sanadahan dambe ay dadka ka taajiriyeen moogtahay ganacsiga online-ka sida hadda ninka adduunka ugu hantida badan ama ugu hodansan ee dalkan Mareykanka Jeff Bezos ku noqdo maaragtay ganacsiga online-ka marka wuxuu caan ku yahay dharka fashionka ee la sameeyo ee lagu iibiyo dhinaca online-ka waan gartay marka nuurow dee ninkan waa kaasoo intaasoo dumaraa soo dalbatay tiradoodana waa intaa dee diyaar mayo hablii ma kaxaynaya 28,000 muxuu mise ma kala xushee sidii cabdixakiin oo natiijada loo wada sugayay dalka Japan gabdhihii dhammaa ay wada sugayeen inta codsiga qadintay mar qura ayaa natiijo aysan filayn ka soo yeertay moogtahay muxuu yidhi intii baan wada kaxaynaya miya Yusaka Maezawa ninkani aan hadda ka sheekeynayno natiijada uu soo saaray ayaa ahayd inuusan cidnaba kaxayn doonin hadda intuu 28,000 codsi soo gudbiyeen waa ka laabtay ayuu hadda yiri waan ka laabuu yiri sababta ma sheegay markaa sababta waa sheegay wuxuu yiri in qayb jirkayga kamid aha ii diiday yiri dareenkayga qayb kamid aha waxa uu igu yiri may sababta wuxuu yiri mar raba inaan niyadda ka jibiyo 28,000 ku dhawaad 28,000 oo gabdhood inaan mid kala baxo oo inta soo hartan ay niyadda ka jabaan marka waa xabadda uu ka xusho maaha inta kale ay diiday inuu niyadda ka jibiyo marka warbaahinta dunida oo dhan ayaa sheekadan tabisay warbaahinta galbeedka qaarkood waxay sheegeen ninkani in sababta uu u yeelayba ay ahayd in uu doonayay in uu ka maseersiiyo gabar ay kala tageen oo filimada Jabaanka jisho u dhalatay dalka Japan gabadhaas oo lagu sheegay 27 sano jir maseer dartii in uu sidaasi marka hore uu u sameeyay tan kalena waxa ay ku sheegeen inuu yahay nin jecel in indhaha dadka caalamka ay maaragtay qabtaan
oo rabo in maaragtay la arko ama la maqlo. oo markaa nuurow sheekadu waxay socotaba ninkani ma ahaynba inuu dee dadkan bulshadan kaxeeyo oo dayaxa tago tage waxay aadba gabadhaasuu kula ficiltamaya ficil gabadhaa ka socday. cabdixakiinow runtii horta waxaa la yidhi ninkani ma uusan ka laabanin qorshihiisa aaditaanka dayaxa, sababtoo ah sanadkii hore ayuu shaaciyey inuu dayaxa aadi doono, waatii aan hore u sheegnay. waxaanu markaas uu noqday qofkii ugu horreeyey oo rayid ah oo isu diiwaan geliya inuu rabo inuu dayaxa tago tan iyo 1972 markii qofkii ugu horreeyey bini aadan ah uu dayaxa cagta saaro. marka taasi waa mid, laakiin waxaanan la ogeyn cidda uu kaxaysan doono, ma gabar kaloo saaxiib ah ayuu yeelan doonaa, ma xaas u yeelan doonaa oo hore u kaxaysan doonaa. lacagta ku bixaysana ilaa hadda ma uusan shaacinin. markaa tigirka lacagta ku goostay intaana lama shaacin qarashka ku bixi doonaa. waan gartay nuur. ugu dambayn haddaan ku weydiiyo marka laga yimaado inuu idhaahdo gabadhii raaci lahayd dayaxaan doonayaa, tirada intaa leeg soo dalbadaan iyo bulshada intaa leeg ay ku soo orodo, sida warbaahinta qoraysa horena waxa uu shaaciyey inuu lacag bixin doono ciddii dib u sii faafisa bejkiisa twitterka ama bogga twitterka ku leeyahay qoraal ku soo qoray. bal ka warantaana tira intee leeg baa berigaana faafiyey? dabcan cabdixakiinow sanadkii hore bishii January ayuu twitterkiisa kusoo qoray ogeysiis ah ciddii twitterkiisa qoraalada uu soo dhigay sii faafisa in ay diyaar ka tahay lacag dhan 100 milyan oo shilinka dalka Japan ah oo u dhiganta 925 kun oo dollarka Mareykanka. waxa uu sheegay in 100 qofood oo ka mid ah dadka ku tixan maaragtay asxaabtiisa twitterka in uu ka xulan doono si aan kala sooc lahayn. marka waana sameeyey dabcantii, laakiin lama shaacin dadka magacyadoodii. waxaa la yidhi 100 qofood oo ka baxsada waana uu siiyey. laakiin su-aasha meesha taagan waxa weeyaan tira intee leeg baa markaa u sii faafisay ama sii gudbisay markuu lacag baa lagu bixinaya? cabdixakiin ogeysiiska lacagtaasi uu ku xidhay ciddii faafisa waxa uu kaga faa'iiday in ay retweet garaysay ama ay sii faafisay qoraaladiisii dad gaaraya ama in ka badan 4 milyan oo qof, taasoo dabcan dhanka kale marka laga fiiriyo magaciisii sii kordhisay. oo waxaana laga yaabay xitaa dadkaas in adduunyadao dhan ay maaragtay isaga kala yimideen. marka warbaahinta qaarna waxaa lagu sheegay inuu ku raadinayay in magaciisa maaragtay uu sii koro. alla baasha lacaga la jecelaa nuuro, intaasoo dhanba lacag baa loo samaynaya. waxaa kale aad iyo aad baa kugu mahad celinayna.